إنما الدين النصيحة شأنها في الشرع عالي بالتعاليم الصحيحة ينجلي زيف الضلال وبأحكام صريحة ارتضاها ذو الجلال فاتبع هدي النصيحة ترتقي نحو المعالي. hadafkaasi dadka muslimka qofku markuu muslim noqdo waa yool ama gool uu raadcaynayo. laakiin noloshu ahdaaf yaryaro ka sokaysay leedahay. waxaa la rabaa ahdaafta yaryara soke inay u khidmayso hadafka weyn. yacni wax kasta oo hadafkaa weyn kaa weecinaya waa inuu noqdaa waxaan macno badan agtaada ka samaynaynin. maalan inaad xoogsato oo shaqaysatid oo hanti yeelatid waa mubaax, waa wax bannaan, noloshana waa lagaa rabaa. laakiin hadday hadafka ku weydaarinayaan ka warran. ilaahay kuwuu qur-aanka ku ammaanay wuxuu leeyahay maxay? rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illaahi waiqaami الصalaati waitaa'i الzakaah. koox baa ilaahay ammaanay. kooxda la ammaanay waxa lagu tilmaamay ragannimo. rijaal weeyaan baa la yidhi. waa rijaal maxay ku sifooba? laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illaah. baaca mushtarka iyo lacagta kasbashadeedu kama weeciso, ma ilowsiiso hadafkii weynaa oo ah inuu salaad oogo, inuu zako la yimaado, inuu ilaahay caabudo, inuu xuso, in aakhiro hortiisa ay taallo. yakhaafuuna rabbahum, inay rabbigood ka cabsanayaan maalin quluubta ay gagadoomayso. idan hadafka weyni waxaan soko oo dhammi dabaab kuma ridaan. ceeryaan maaha kaa qarin karta. mushkiladda dadka haysata ugu badani waxa weeyaan ilaahay wuxuu ina leeyahay haddaad salaadda dhammaysaan maxaa layna yidhi? fantashiruu fi lardi wabtaguu min fadli illaah. salaaddu markaad dhammaysataan dhulka ku faafo ilaahay arsaaqdiisa raadsadaa la yidhi. wawadkuru llaha kaiira lacallakum tuflixuun. laakiin dhulkufaafka iyo tijaarada iyo waxaanay hadday hadafka weyn qaldayaan iyagaa laga hortegaya. wa rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illaah. waxa badan markaa maanta ahdaafta waaweyn intay dadku ilaabaan wax yaryaroo sakayna ku mashquulaan. waxaa laga yaabaa inta saacadood aad ku bixiso iskuulka yaad saaqidin oo ka warran yowmulqiyaama haddaad saaqiddo maalinta aan saaqidnimo ka weyni jirin. waxaa laga yaabaa inuu leeyahay yaad ceeboobin oo ka warran qiyaamaha marka reer nebi aadam oo dhan laysu keeno haddaad ceebowdo. yowma tucraduuna laa takhfaa minkum khaafiya. reer nebi aadam ilaa ka u dambeeya goobay taagan yihiin haddaad ceebowdo. waxaa laga yaabaa inaad sileedahay noloshu way kugu adagtee fududee oo ka warran maalinta 50,000 oo sannadooda noloshaynu joognoo dhammi waa imisa? 60 sano, 70 sano, 80 sano. ka warran maalin 50,000 oo sannadooda haddaad cadaabanto intaan janniya naarba laysla gaadhin. kaana 50,000 sana maalinah. qiyaamuhu waa maalin 50,000 oo sannadooda. 50,000 oo sannadood baad taagnaanaysa. 50,000 oo sannadood baa dadkan la xisaabaya. 50,000 oo sannadood baa cadceeddu halkan taagan tahay. 50,000 oo sannadood baad waxaad hadhsanaysaa waxaad xoogsatay ee hadafkaasi aad u xoogsatay. 50,000 oo sannadood baad dhididaysaa oo dhididkaagu wuxuu gaadhayaa halka waa dunuubtaadu joogtay. 50,000 oo sannadood baa ragga qaar hadhsanayaan oo carshuraxmaanka hadhsanayaan. ay ka mid ahaayeen dhallinyaradii ku kobocday maxay? ilaahay cibaadadiisa. madaxdii cadaaladda samaysay. kuwii habeenkii istaagay ee ishooda ay ooyaysay. kuwii gacantooda midig waxay bixinaysa gacantooda bidixaanay ogayn. kuwii shahwaatu nafsiga ka soomay ee naagaa quruxda badan leh inta u yeedheen ku yidhaahdeen ilaahay baan ka cabsanayaa. ama inantii inanka quruxda badan leh u yeedhee tidhi waar ilaahay baan ka baqayaa ayay dhaaf. kuwaasi waxa la yidhi iyagu carshuraxmaan bay hadhsanayaan. cadaabkanaad ku jirta iyo waxa kana arki maayaan. ka warran haddaad sileeday
nolosha waxaad u baahantay way kugu adkaatay biyo lacaba iyo sharaab iyo waxoogaa dabdabacsani inaad u samayso ka warran 50 sannadood haddii haraadka u kaa siiyo iyo ninka xawdka nebi maxamed ka cabbayaan haraadayninba yacni hadafka weyne hadduu lumo noloshan soka qiimo ma leh shayaaiinu linsi waljinnina waxay isugu tageen inay hadafkaa weyn qariyaan oo ay kugu mashquuliyaan ahdaaf yaryaroo soke waxbarasho iyo capacity building iyo halkan kabood iyo xoogsi iyo shaqaysi iyo wax yaryaroo soke oo marar badan aan hadafkaba uu qiimaynaynin dhallinyaradana iyada waxa u sii dheer qaar aan tannaba wax ka tarin baaba lagu sii mashquuliyey hebel baa laadiyo heblaaya kolayga ku riday kubad oo hadduu ku rido maxaa kaa galay maxaa ka soo baxaya ninbaa kubad 2 birood dhex mariyey maxay nolosha ku soo kordhisay gool baa la dhalay maxay nolosha ku soo kordhinaysaa aakhirana wax kama tarto adduunkana wax kama tarto idan ahdaaftii rasmiga ahayd dowladan waxa la idinku qabanayaa baan rajaynayaa in ahdaafta la saxo inaynu dib u xisaabtanno oo dib nolosha u hagaajinno inaynu buusalada hagaajisanno garanno barul amaan xagee lagu gaadhaa doon baynu saaranay noloshu waa doon badweyn ku dhex jirta hadday buusaladaadu sax tahay markabka badweynka soconaya haddii buusaladu kambasku hadduu u saxan yahay mahma ay waxaanay dhacaan wuu gaadhi meel barriyo nabada uu dego wuu gaadhi haddiise kambasku kaa lumo mawjaduhunbaa kolba dhankuu kaxayn badweyntuunbaad ku wareegi doontaa adoo aan weligaana dhul arkaynin waxaa la mid ah qofka noloshan garan waaya wuxuu u jooga ka qabanayo haddaad cab oo cayaar oo boodbood oo wax dhal oo xoogso oo daaradhis oo kan samee dan hargaysaa joogtaan bal suuqa hargaysay isdhex taaga raggii dhisay meeye waa daartii xaaji hebel iyo waa tii ilmo hebelunbaa maqlaysaan meeye xaajiyadii ka tageen daarahan hargaysada aan maanta dhex joogtaan raggii lahaa cidi kaba noola xaggay joogaan waa kuwaynu meelahan ku marro xataa magac male hadda xabaalaha ka bannaybana asxaabulqubuurkii xaajiyanimadii iyo magacnimadii iyo maamuuskii iyo hebel wixii lumiye waa asxaabilqubuur waa dadkaa godadkaa ku jira ciiddaynu ag marayno ma waxaad diyaar u tahay inaad danda intaad dhisto ku biirtid kuwa magaclaawe halkaa ku jira aan la kala garanaynin xufraddan ay ku jiraan dabcan qaar bay janno u tahy qaarna naar bay u tahy laakiin inaga agteenna waa asxaabulqubuurun waxay isweydiinta le markaa war maxaynu u noollahay dhallinyaroy xaggaa ku socotaa noloshaadu xagga ku socotaa jaamacad baan ka baxay shahaadad baan qaatay shaqo fiican baan helay war waa tegaysaaye waxaasoo dhammi waa maalmo waxaasoo dhammi kam labistum cadada siniin baa lagu weydiin doonaa labitnaa yowman aw bacda yowm fas'al ilcaadiin baa ku xigta maalin ama maalin badhkeed noloshii oo dhammi waxay kula noqon maalin ama maalin badhkeed markaad kaleba garan weydaad waxaad leedahay fas'al ilcaadiin kuwii tirin jiray bal ha la weydiiyo adigu inay maalin tahay iyo inay maalin badhkeedta aad kala saari kari la'day ee bal cid labadaa kuu kala rajaxda ha la weydiiya baa taagan tahay oo nolosha ma maalin badhkeed baad dooratay marka ayuha alikhwa hadafka aynu raadacaynayno adigaa lagaaga baahan yahay hadafkaa wixii lagu gaadhi lahaa cilmiya ragannimo ah xoogsiya dadaala adigaa lagaa rabaa inaad la timaado adiga jid baa lagugu talagalay guul iyo guuldarro iyo waxani waa iska meel soke adiga waxaa lagaa rabaa inay naftu kaa baxdo adoo rabbigaa caabudaya adigoo ariiqa saxa ah haya waxaa lagaaga baahan yahay as'ilada kugu soo beeganta nolosha inaad ka jawaabi karto oo aad uga jawaabi karto hadafkii lagu abuuray wixii aad ku gaadhayso kelmadaydu markaa waxay ku kooban tahay nolosha yoolkeedu yuu idinka qaldamin ilaahay waxaan ka baryayaa subxaana wa tacaala inuu ina wada sugo inuu inagu sugo ariiqa xaqa ah inuu inaga badbaadiyo cadaabkiisa inuu inagu sugo jidka jannada loo maro
kuwii islaamnimada ku dhintayna laynaga yeelo subxaana wa tacaala